الله وبركاته. أما ضد كسر بلدا وشركا وحمد السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي والله يا الناس أنتين وناس سوى جيتان شركا كنت أنا وأنا وعملنا waxaad ku mahadsantihiin inaad soo jiitaan gabdhaha wiilasha odayaasha dhammaan dadka halka isugu yimid waa shir ka mid ah shirarkeena caadiga ahaa ee joogtadeena ahaa oo aan ku falanqayn jiray ama aan uga hadli jiray isbedelada ka socda Jubbaland oo ay ka mid tahay ugu soo horeyso doorashada oo hadda aan ku dhex jirro iyo kambeynadii iyo waxyaalaha runtii ay tahay inaan toosino inagu isbedel doon ahaan inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer Jubbaland waxyaalaha waxa hadda socda khaldanaad rabno inaan ku saxno shirarkii aan kaga hadli jiray oo aan kusoo duumay aan kaga hadli jiray aaraada iyo maartay bulshada reerka aan ugu soo gudbin jiray shir ka mid ah weeye Jubbaland dida aan maqasheen waa madaxda halkaa fadhida annagoo ismadoodii ah iyo shacabkii iyo gabdhaheena quruxda badnaa fadhiyo cid kale naga maqan kala ma jiro cidii maqan waxay ku maqantahay jidda waxaan kaloo doonaynaa inaan shucuurteeda ka muujiyo ama cambaareeyo dulmigii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee Jubbaland caasimadda ku meel gaarka ismadii Soomaaliyeed oo ka kooban 150 qof na lagu bilamiyay hotel Maka oo ku yaal xaafadda dalxiiska waaxda Waamo halkaasoo la yiri maanta waxaa kulanka idinla kulmi doona igadna aan ku balansaneen dad qaarkiina ay ka yimaadeen baadiyaha oo saakisalaas waxa meesha ku soo tukadeen in la yiraahdo maantay ma la imaan karo ammaan ma wax la qabtay miya raalli ka dhaarataas kuwii hawsha ka shaqeeyay hadaan kuwii dhibka ka shaqeeyay hadaan kuwii soo abaabul hadaan annaguna waxaan cambaareynaa kuwii ayaga beenta sheegay magaalada Kismaayo waa ammaankeedana waxa suga waxa weeye waa duqowda isimada aqoonyahanada iyo gabdhaha way mid kale wax yar baan idigu darayaa wiilasha qoryaha wata ee booliiska ka tirsan ama daraawiisha ka tirsan waa wiilashii aan dhalnay oo qoryaha u dhiibnay iyo baabuurtii dhaqaaleena way ma cid kale iska leh ma lagu caburi karaa ma ogolaan karnaa adeerayaalo Jubbaland waa la isbaranaya hadda waa cusub noo furmanaya sababtoo ah waxa weeye annagu dulmiga waadiina Jubbaland annaga aasnay intaan halkaan fadhisaba dhaqaalaheeda ku bixisay inta halkaan fadhisaba wiilashoodii u soo dhinteen waxaan doonaynaa ma aha dagaal waxaan doonaynaa Jubbaland in la kala qaybiyo ma aha waxaan doonaynaa waa cadaalad ma waxaan doonaynaa cadaalad soo ma aha waxaan doonaynaa sinaan soo ma aha haddaba caalamka waxa maqashiinaya igad qaasaan oo maanta goobjoogka magaalada Kismaayo shacabkiini aad maanta caburuseen aad u imaan weyseen oo beentan laga sheegay waa kuwana waxa codsanaynaa in kulanka uu elboorka ka dhaco dhammaanteen inaan ka qayb galno soo raali kama tiin haddii taan loo golan waayana waxaan ku baaqayaa banaanbax aan ku baaqayaa banaanbaxaasoo u dhixi doona si nabadgelyo ah soo intaan raali kama tiin وماسنتين آدي بان يدقون مهد علنية مر لباد مر سدحات مر دنب Jubbaland وحر يدكون حر باتهين عدن بأو بقص دبا كبغنا ملا ويليش أنا أقول لهم ميا كبغنا قريها نجاودي ميا كبغنا ميا نلقوا عبركرا هذا ويليش ويسقانان أنا جنوان لقانا وحوسعنا وعدالة وي ما أنت كل عد ماشي Jubbaland ما أنت مدحوينا إلا إله مجده كل مشرح وي مدحوينها وحقاتي ورقدي مشرح لنا صح معها وحول لما يدي إنما كان كافر يوي waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku maamaalaan ratiga hore dadsiga dambe ratiga hore saaqadkiisu leeyahay dadku yani waxay leeyihiin qaab hogaana oo ay isku raacaan ma dhici karto qof bini aadana bulsho uu ka dhashay inuu xoog ku caburiyo kaga xoog badnaado asagu awood aanan dadkiisu lahayn qofna lama imaan karo waxaan leenahay dadku waa siman yahay dalka iyo dadka xaq ba qof walba u leeyahay in uu
u tartamo xukumo qof kastoo isbidayana in la siiyo madax bannaani iyo soo dhoweyn iyo xorriyad buu xaq u leeyahay qof kasta siduu u jecel yahay inuu asagu wax xukumo ayaa walaalkina u jecel yahay inuu wax xukumo waxaad ogtihiin qofka xoogga lagu xukumaayo kalsooni kuma haysto xukuumadda asaga xukunta kalsoonina uguma shaqayn karo kumana taageeri karo kan isagu xoogga wax ku haystaana dadka uu xukumo kalsooni kuma qabo oo shaki buu ka qabaa dadkaana waa ku diidan yihiin way kaa soo hor jeedaan wax kula qaban mahayaan yacni waa laba shaki bay ku kala nool yihiin asaga iyo shacabkiisuba laba shaki bay ku kala nool yihiin dadku waxay qabaan xukunkan xoog buu kugu haystaa hebel xoog buu kugu xukumahayaa kuma kalsoona kan wax xukumahayaana kuma kalsoona dadka uu xukumo oo wuxuu leeyahay kuguma ay kalsoona oo waa ku diidan yihiin waxaan leenahay waxaa wanaagsan qofku in uu raadsado xukun lagu kalsoon yahay oo uu dadka ku xukumo haddii uu waayo wax sharafii kuma jiraan ha iska daayo sidaasaan leenahay ha iska daayo xukun lagugu kalsoon yahay oo dadku kugu kalsoon yihiin oo yacni qofku wuxuu wax ku hanan karaa dadkiisoo garab taagan dadkiisoo taageersan dadkiisoo u hagarbaxaya dadkiisoo u ducaynaya dadkiisa oo muruq iyo maal iyo maskaxba la garab taagan laakiin hadduu yidhaahdo waxbaan caburinahayaa gabbinahayaa daan jabinahayaa ma suuroobayso waxaa khayrka iyo barakadu ku jiraan kalsoonida iyo walaalnimada iyo wuxuu yidhi wiilwaal walaalow waxaan ahayn rag waa lagu xukumi waayey hooyadiina u hayayo ma dhacayso waa waxa ugu xun in hooyada in loo hayo waa waxa ugu xun yacni si kasta waan sameeyey waan caburiyey waan si kastaan yeelay walaalow wax ka roon oo ku xukumo waan waayey buu yidhi taas waa taas waxaan kaloo la hadlayaa dowladda Soomaaliya jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa cid kasta oo Soomaaliya danaynaysa dib u dejinteeda iyo ammaankeeda iyo igad cid kasta oo xaq ciidan iyo xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeed kaga qayb qaadanaysa Soomaaliya dib u dejinteeda waxaan leeyahay si cadaalad ah sinaan ah in loogu sameeyo maamul ha ka shaqeeyeen ha iska dhaafeen jilicsanaanta iyo warwareega iyo ninjeclaysiga wabillahi tawfiiq wa maasantii marka sidaa darteed Jubbaland waxba kama bedeleen maamul goboleedyada ka mid tahay waa maamul goboleed hoostaga dawladda Soomaaliya ummad Soomaaliyeed baan nahay Soomaali loo yacdo iyo raas kambooni inta u dhaxaysa waa Soomaali waa walaal waa silsilad isku xiran Jubbaland waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay isbedel waan aragnay xukuumadda jirta xukuumaddu way maadsan tahay meel fiican bay wax keentay laakiin dadka in ay qaybiso oo qayb ay meel la gasho qaybna ay ka dhigto dadka isbedel doonka waxa lagu tilmaamaa waxa weeye nabadiid war nabadiid ma nihina inteenan bulshadii shacabka ahayd ee Jubbaland baynu nahay dawladuna waa shacabka shacabkii wuxuu doonayaa isbedel ma ahan in la yiraahdo waa nabadiid ma ahan in la yiraahdo wax kale lagu tilmaamo bulshada in la qaybiyo ma aha waxaan leeyahay nimanka maamulka haya doonaya inay boobaan xilligan doorashada waxaan dhihi lahaa Jubbaland buuq iyo qaylo uma baahna fadqalala uma baahna nabad bay u baahan tahay meel fiican baa wax keenteen dadkii aad shalay xukumayseen maanta haddii isbedel uu rabo waxaan dhihi lahaa inaad soo dhaweysaan oo aad tiraahdaan war maxaa idinkuna rabtaan oo hataa haddaa idinka dib u soo baxaysaan aad dadkii kasabtaan oo intan waa ummadii bulshadii Jubbaland aad tiraahdaan war sidaa ma jirto oo u aqal celisaan haddaan khaldan nahay aad tiraahdaan war sidana waa khalade bal sidana fiican laakiin ma aaminsanin dadkana lama caburin karo looma cagajuuleen karo qofka bini'aadmiga ah walaalow iyo ehelnimo iyo Soomaalnimo lagu xukumaa dadku waxa weeye saddex gobol oo Jubbaland ah oo degmooyin ah saddex gobol oo Jubbaland ah oo degmooyin ah oo system isku darsaday way waxa uu ruux gaar u leeyahay ma aha waxa uu ruux gaar u xambaaranaya ma aha waxaan leenahay waxa miiska la soo dhigo miiska waxa aan ku xisaabtano nin walba saamigiisa ha qaato
doorasho ha la galo ninkii soo baxa tartankaa ku guulaysta ha lala shaqeeyo laakiin khilaafka iyo buuqa iyo kala qaybinta iyo handadaadda ummadda shacabka ha laga daayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah dawladda la sheegay waa shacabka axmed iyo intii lamada waa xukuumad kursigooda ilaashadaan laakiin dawladdu horta waa shacabka si kalsooni ah oo midnimo ah annagoon qabiil ahayn ficilkeenna intaan muujinno meeshaan rabna horta aan ku marno qofkaan rabna aan dooranno waa lagu dili iyo waa lagu qaban iyo waa lagu caburin iyo waxaas meesha kuma jiraan si midnimo ah annagoon qabiil ahayn oo nin jeclaysaan waxba ku raadinayn ninkaan rabna aan dooranno oo weliba nin aqoon leh oo dadka iyo diinta iyo dhulka saddexdaa wey waa dad diin iyo carradaan ku taaganay saddexdaa qofkii wuxuu qabanaya ya dadka ilaaliya diinta ilaaliya dhulka ilaaliya waa inaan doorannaa aqoonteeda leh kartideeda leh waa inaan doorannaa axmed meel fiican buu na soo gaadhsiiyey asagoon yinnaa fiirin war dad bi ilaahay naga dhiga aan tashanno war dad bi ilaahay naga dhiga aan tashanno maantay nala siman tahay haddii berita uu nin iska qabsado xoogaa shilmaa intuu bixbixiyo oy taladii naga tagto maxaan berri qabsanaynaa war maantay nala siman tahay wiil iyo gabadh iyo oday iyo musharaxba maanta meesha ay mindidu qabashada leedahay ka qabsanno oo nin aqoon lahayn horta aan qabsanno waxaa kaloo laleeyahay meelaha haddaad hadasho waa lagu xirayaa caawa xabad baa madaxa lagu dhufanayaa xaq ku dhima haddaad dhimanayso waxaan caalamka cod dheer iyo cod gaabanba ugu yeedhayaa aniga inay jubbaland arrinteedu meel bay taagantahay in la soo fargeliyo kaamilo maxamed xasan in la soo fargeliyo dawladda dhexe timaado UN timaado jaamacatul carab timaado islaan oo dhan in yimaado danta guud ee danaha jubbaland inaynu uga hadlo waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa kulankan isugu yeerihii cabdinaasir seeraar musharax baa isugu kan yeeray aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa kulanka uu noo alcaamiyo aanu isugu nimid ilaahay baa mahad iskale dadweynaha soo ajiibayna waanu u hambalyaynaynaa dhammaantood waanu u hambalyaynaynaa intaan markaan ka gudbo waxaa laga hadlayaa xaaladda jubbaland oo ayaamahan markii wakhtigii dawladda jubbaland si kastaba ku dhisnaatee la soo dhisay uu soo gabagaboobay damacyo badan ay yimaadeen dadkii jubbaland mas-uuliyaddeeda iyo hoggaankeeda hayay iyo kuwii ku soo dagaalamay iyo kuwii ninnimadeeda ka shaqeeyey dad ka baxsan oo inoo yimid oo wax doonayaa ma jiraan waa dadkii soomaaliyeed ee jubbaland iska lahaa baa kuwa wax doonaya musharaxiintaana ka mid yihiin kuwa hoggaaminayana ka mid yihiin waxay dadku ka cabanayaan waxaa weeye dadku waxay ka cabanayaan cadaalad darrada in loo daadegoo la tilmaamaa la rabaa waxaanaan doonaynin isimo been abuura oo la qoray isimadii dhaqanka oo jooga oo beel walba loo sameeye ma doonayno xildhibaanno xulaya ma doonayno waxaanaan doonayn xildhibaanno dad gacantooda ku samaysteen ee aan beelaha iyo ummaddu ay ka soo jeedaan ayna soo dooran baanaan doonayn cadaalad darraday ka midta waxaanaan doonayn saddex nin baa la keenayaa mid baan kala baxayaa ma doonayno waa cadaalad darro waxaanaan doonayn wax kasta waxaanaan doonayno wax kasta oo caqabad iyo cadaalad darro ku noqonaya shacbiga jubbaland ma doonayno intaasaannu isugu nimid waannu caddaynaynaa waa ku dheeraysanaynaa si noqnoqodana waa u sheegaynaa qoraalna waa ku faafinnay dadweynaha reer jubbaland waa mid hal dan bay leeyihiin danta ay leeyihiinna waa horumar iyo cadaalad intaasaynu doonay war intaa waxaanaymaan doonaynaa intaasaan doonaynaa intaa qofkii diidanna ka yeeli mayno cid caburin karaan ma jirto shariif sakiin markii uu xaaladda ka soo isku bahay koonfur galbeedntii ku dhiid wal ogaay way fadaan axmed madoob intii uu sharaftaan ku dhiin oo meel aray iriinyo iyo binaantu san kortumane ee walaalyaal oo qariis sariirta hoosteed galiyo san arna inuu isku bahay guddiga
Jubbaland oo garab ku rarka guddiga doorashada Jubbaland aan ka weyne gudoomiyaha Xamse ha is casiloy guddiga dhinu ku rarka Axmed Madoobe xaraysada ha is casiloy xilwaanada magacayaalka oo meel ka aruursaday oo siyaadsan shaqeeyeen ha is casileen way baafadaan xilwaan cusub way baafadaan oday dhaqameedyada oo rasmiga ah ay banaanka roogaan in la xareeyo xilwaan cusub oo una dooradana fadaan xilwaan Axmed Madoobe xaraysadi baryaana xoog meel la raacay miska dhitiis baryaa idoora hadda idoorneen waan ku dilay una weelaan xoog ma ka dooradaan Soomaaliyiin way baaqan diray meel la raacay beesha caalamka إيجاد أوجا كنتير النبلة ميدا يا هذا مالنا هرجل سيدا بعهاد نيدل هذا نارتي أمني جاي والسقاء مالنا نارتي وين نارتي أبني كذا والسقاء مالنا نارتي باش عالم ما يبقى باش عالم كان هذا قدرة ما هي هذا أحمد مدوب شقياس باش عالم كل شقاء إيجاد كل شقاء أحمد مدوب شقياس ما يبقى هذا أحمد مدوب شقيانا شرع بدل على كلنتي شعب على كلنتي ونون جاكني لكل مفدي لكن عدالة درة يا ميل رايح من مدوى ابني قلنتان كجرة قريال كل ما حب هاي ونحولها كان عشور تلقاء لك كذا إنه اللي يعبر يوهاي جبلان قبيل ما جبلان ميل راي شخصنا ما جبلان سوماليين عن كويتي كونفور قبيلة بالك روان كونفور قبيلة هالقبيل دقيقة بعتبر لي واي جبلان أو ميل راي بقول إيش نقوم إذا دنيس كويتي تور مالن هلا عبروس ما أقولي عبروس ما أقولين قديك دورشاية دين كرارك أحمد مدوب حرايسد ما أقولين تضبطن إيشان ما يسا أنون ما يمقعودان أو حلوانات إني مثل فديه أضيالك بنانك اللي كتبي حرايسدان أو أضيالك دقن كاي الرسمي هاي أضيالك مقعويالك أحمد مدوب حرايسدي أنا هذا أضي كان يمثل بيدويل كشاني أضي بيدويل كشان يمثل كران أضي كيكا إنت روكس ماي كدالدي جبلان كدالدي تضبطن جرو بنانك على كريبي والحراي مركز هالجي حرايسين بنانك دين بي وإلى هذا رادق معهن حالة دواء إثباتي كصاب حماش النبا ليس ما ولا ده لقى كان كافر قلبت مين مثل كرو كافر قلبت كشان مين مثل كرو أنا كافر قلبت كشان مين مثل كرو كافر قلبت دولة أنا جبلان هالدولة ده ما يبقى فضاء رقماتك أنا أو رقماتك كهاي سوجرين كهاي أنا اللي حراي حلوان كسيات شقاين والفرديسية فال بشغال ديار من هنا ده ما هتسنتين بنام بهانا هل ندلوي صعدانا سياد سنة عبرون كجرني إيه رفادي عدالة درئية إيه قاعدة قيادة هذا عدالة المحل يجري عدة هان خرينا ما يالين واديدنا عدالة باربنا وسلامتين maamul baynu ahayn la yiraahdo Jubbaland oo kamida federalismka Soomaaliya madaxweynenu samaysanay laba jeer buu ku guuleystay 8 sano madaxweynaha waxa la gaaray waqtigii doorasho la qaban lahaa oo xilkiisa dhameystay waxaad moodaa inuu si gabi ahaan badiiday waa uu diiday baa la dhihi karaa markii laga tago waxa beenbeenta la maduufikeeyay iyo musharaxiin dad aan ahayn oo loo yeeray waxa la dhihi karaa inuu diiday in la tartamo markii la gaaray waqtigii doorashada taas waa wax cad oo la wada og yahay oo la wada garanayo qadiyad weeye horta waxaynu isku hayno hadii aynu nahay labada xisbi ee isbedel diid iyo isbedel doon waxa isku hayaan waa qadiyadaas oo ah Jubbaland ama magaalada Kismaayo waxay hoos tagtaa oo caasimadu ah Muqdisho iyo waxa caasimadu oo hoos tagtaa Nairobi labada fakar weeye horta fakarka guud ee isku hayno in sida loo fahmana waa muhiim waxaan dhihi lahaa in marka dadka caalamka inaga af Soomaali baan ku hadlaynaa hadii aynu guriga musharaxiinta mid maal isugu tagno inagoo fara badan oo aynu ku shiro waxaynu ku hadlaynaa waa af Soomaali inaga baa og caalamka laakiin fariin baa jirta loo diro oo caalami ah waxa jira mudaharaad wax la yiraahdo mudaharaadka adduunka wax lagu tusaa igaad baa joogta safiirada caalamka ogtiinkii Mareykanka kii Ingiriiska intuba waxay kala hadleen Axmed Maxamed Islaam inuu doorasho xor qabto dadkan uu xorriyad siiyo xorriyatul qowl ka furo waxyaalihii ay ku soo dhaqmeen dad weynu wada ognahay Jubbaland baynu ahayn
xildhibaan la xidho kadibna la tarxiilay adduunka kama dhicin waxaa ugu macangegsan ninka la yidhaahdo Kim Jong Un baa ugu macangegsan adduunka sidaa darteed marka wax loo dulqaadan kara bataatanba maaha waxa meesha ka jira in beelahii la dhaho alyacna anaa idiin soo xuli idinku farfadhiista xildhibaanadiina anaa xuli anaa inay xildhibaan qofka aan ka dhigayo anaa idinka dhigo la abuse gareeya qabiilooyinkii xitaa heer noocaasa la gaadho wax loo dulqaadan kara ma aha gebi ahaanteedba waxaan markaa leenahay walaalayaal innagoo intii saxnayd ee isbedeldoonka ahayda isbedeldoon markii inta halkan timid maaha waa intan iyo in ka badan oo magaalada jirta aynu u diyaar garowna inaynu dareenkeenna muujinno mudaharaad nabadgelyo aynu samayno oo aynu caalamka tusno inayna rabin waxaan meesha lagu maluuqahayo bismillah alxamdulilah wakafaa dhammaan waa salaamantiin hoggaan dhaqameedyada golaha badbaadada Jubbaland musharaxiinta ururka haweenka dhammaan waa salaamantiin dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ku idil run ahaantii waxaan rabaa inaan halkan oga sheego ummadda Soomaaliyeed ama isbedeldoonka ama isbedeldiidka dhalinyaraha aan ku aragnay maamulka Jubbaland ee uu leeyahay ee hadda noo muuqda run ahaantii dawlad iyo madaxweyne iyo macalagaasimayaasheeda dawlad agaasimaheedii iyo madaxweynaheediiba Nairobi degan yihiin baa horta inay sii maamusho taasi horta waa arrin ma garanaysaa ee aan caadi ahayn xaaladaas ma garan dhaliisha kale ee uu maamulka leeyahay waxa weeye in uu ka bedel qaado cidaana u dhagan nugleen waa inuu ka bedel qaato nidaamkan kollay sida uu ku socdo waxaad moodaa qoladii hadda ka hor ee waddanka jooga jirtay in ma garanaysaa barnaamijkaasi aan ku naqaani run ahaantii waxaanu rabnaa haddaanu nahay ma garanaysaa dadka deegaanadan aaminka ah ee waama ee naf iyo maalba aad maanta muxuu ahay meeshaad aragta seexanaysa oo dadka lagu dulmin jirin in ma garanaysaa Abdullaahi ka raali noqdo sidan in loo dhaamo hoggaanka sare haddii ma garanaysaa waqtigiisa u dhamaaday xibnihii ma garanaysaa dagaalada ragga u firfircoonaa maanta wax raadinayay xibnihii ugu sare maamulka Jubbaland ahaa yaa wax raadinayay wax raba haddii uu Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowladda Soomaaliya Jubbaland intaas uu soo hayay saacadan hadda la taagan yahayna uu yahay musharax sida uu sheegay in kasta uu guddiga doorashooyinka asaga magacooda dhistay hagaajistay sida ay sheegayeen xibnihii musharaxiinta ee annagana aan markaati ka nahay waxaan rabnaa Abdullaahi ka raali noqdo in isbedel meesha ka dhaco isbedelka maaha in askari la bedelo askari kama raadinayna annaga isbedelka waa hoggaanka sare waa in uu bedelmaa waana wax sharci ah meesha yaalla deegaanadan muxuu ahay badankooda aan leenahay xagaas aan ka soo jeednaa waxa ma rabno insha Allah Abdullaahi ka raali noqdo hoggaan dhaqameedyada waa meesha kaliya ee ummadda ka socoto weeye hoggaan dhaqameedyadu waa meesha kaliya ummadda ka dhaqaaqda weeye hoggaanka dhaqanka haduunan hoggaanka sare ee maamulka uunan tala ku lahayn runtii barnaamijkaasi waa barnaamij aan caadi ahayn ay ummadda Soomaaliyeed ku qancaynin 25 qabiil baa gobolkan degta 25 qabiil baa degta waxaad ogeedeen ayaan dhaxdaasi shir kuumadaha in la qabtay shirka kuumada lacagtii lagu qabtay dhaqaalihii lagu qabtay wuxuu ka yimaaday 25 ka qabiil Soomaaliyeed gobolka nala degan cashuurihii laga qaaday ahayd waa tii masiibada dhacday ee qarax maxaa ka dambeeyay masiibay in muxuu ahaay islaanta reer dalacada ee caanaha gadanaysa 3 kun lagu cashuuro 3 leeda caanaha ah ee kuumadana muxuu ahaay loogu sameeyo gogol dhaqaalihii la ka soo baxay halkaas Soomaalida kana waxba laga gaarsiin waa dulmi weeye masiibadeedana waan aragnay oo waxaan aragnay weeye haddii Ilaahay ka raali noqdo ciidamadu waxay ka yimaadeen 25 ka qabiil ee gobolka dadka ka yimaadeen ciidamadu waa ciidamo Soomaaliyeed weeye xaalado adag bay soo mareen waxyaalo badan bay ku samreen haddana way samreen difaacayna ku jiraan ciidamadu annaga waa ma garanaysaa annaga naga yimaadeen musharaxa ugu ciidan yar haday xaalad kale dhacdo in nooc kale loo fikiro musharaxa ugu ciidan yar baa 200 nin haysta oo u feelsanto hadda heegan u tahay marka annaga waxaan rabnaa Abdullaahi ka raali noqdo hoggaanka waxaanu rabnaa inuu ka mid noqdo musharaxiintaasi guddi doorasho dib loo hagaajiyo hoggaan dhaqameedyada faaga ah ee meelaha laga yimaado ee deegaankeen qaarkooda badan deegaankeen waxaanu meesha ku aragnaa hataa xildhibaanna aan ka soo jeedin deegaankan oo waxaan la yaabanahay weey taas waanu isgaranaynaa tan muxuu ahay waa garaamihiisi weey mid kamid ah weey annagu waxaanu sameeynaa maamul baan hadda ku dhawaaqeynaa ugu shaqeyni cid alle cid naga hor imaatana wala muxuu ahay dawladdan amaanka nagu muxuu ahay garab taagan baan ka hor imaan karin dawlad baanu hadda magacaabi karnaa haddana waan howlgal karnaa magaalada ka shaqeynaysa iyo deegaanada Jubbaland waxaan ahay aniga beesha aan ka soo jeedo beel deegaan oo la garanayo weey wallahi had waxa la helay 2,000 oo wiil oo bowra guble oo lodooda la jooga beesha laga helay aniga weey oo deegaanka degan ma yeelayno waan diidanahay
aad ugu mahad celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan isbedel doonka ama golaha badbaadada gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland golaha aqoon-yahanada badbaadada Jubbaland oo dhalinyartu hormuud ka tahay oo har iyo habeenba la garab taagan Jubbaland inay hesho cadaalad midnimo iyo sinaan marka inta laga gudbo waxaan idinku bishaaraynaynaa taariikh ayaa qorantay maanta taasoo ku suntan 7 bisha 8 ee August oo diyaar u ah bulshaweynta reer Jubbaland in ay miiska soo saareen golihii badbaadada Jubbaland oo ka kooban 75 xubnood waxa kaloon caalamka u sheegaynaa dawladaha dariska international community-ga IGAD and AMISOM dawladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan in ay diyaar naga yahay golihii doorashada Jubbaland oo u guuraya ma aragtay in uu badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. That's why Somalia it has been changed and change come from Kismaayo. Kaloon aan idinku bishaaraynaynaa golaha militariga ee AMISOM waanu la kulannay guddi baa la sameeyay golaha ammaanka AMISOM la yiraahdo oo ammaanka Jubbaland marka AMISOM la yiraahdo meelaha ay AMISOM gacanta ku haysa iyada ka mas'uula taa micnaheedu ma aha dadka in ay tiriid garayn karaan wiilasheena har iyo habeen maskaxdooda la doonayo in la khaldo walow ay xaalad akiran ay ku shaqeynayeen waxaan mahad gaar ah u soo jeedinaynaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ciidamada booliiska ee furimaha had walba jooga kuwa cadowga la dagaalamaya in ay u diyaar garoobaan in ay ka qayb qaataan isbedelka waxaanu haynaa xidhiidho fara badan oo dhalinyarada qalabka sida ay u diyaar yihiin in ay idinka idin taageeraan mudaharaadada dhawaan dhici doona wala fiicno cabsiga jirta Soomaa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد marka hore waxaan isxasuusinaynaa inaan Ilaahay ka baqno insha Allah ta'ala taasa ayaa aakhiriya adduunkeenaba guulino Soomaa midda labaad reer Jubbaland waa salaamantihiin dadka tirada badan ee meesha isugu yimid waa xubnihii isbedel doonka Jubbaland Soomatiin waxayna wakiil ka yihiin waa golaha badbaadada Jubbaland anigu marka 3 qodob baan rabaa inaan ka hadlo maanta 3 qodob oo muhiim ah ayaan rabaa inaan ka hadlo qodobka koowaad waxa weeye isbedel doonku horta muxuu rabaa sidiisaba isbedel doon haddaan nahay maxaan rabnaa waxaan rabnaa waana ogtihiin dadkana inaan u cadaynaan rabnaa annaga waxa kaliya rabna waxa weeye inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo nabada inay dhacdaan rabnaa soo taa maaha midaan rabno intaasaan u soconaa cidna inaan dulminna ma rabno dhibaato inaan geysanana ma rabno doorasho xor iyo xalaal ah oo waliba nabada say ku imanaysaa marka midaas waxay ku imaanaysaa midda koowaad waa in odayaasha dhaqanka ee soo jireenka isimada la yaqaano ay noqdaan kuwa soo xulaya baarlamaanka waxaan halkan ka taageeraynaa bayaankii ay shalay soo saareen isimada dhaqanku bayaankii ay soo saareen mataqaanaa la shaaciyey oo ay kaga sheekaynayeen dhibaatada lagu sameeyey odayaashii dhaqanka bayaankaasaan taageeraynaa midda koowaad haddaan nahay golaha badbaadada Jubbaland isimadii markay saxmaan oo isimadii soo jireenka ahaa ee la yaqaanay oo kuwan bugta ah ee gacan ku rimiska laga saaro meesha kuwii saxda ahaa soo fariistaan baa waxaan ka rabnaa ayaga inay soo saaraan halkii xubin baarlamaanba meeqa qof aan ka rabnaa hal qof 3 ma ogol lahay waa maya maxaan 3 u diidaynaa bal hadda isweydiino 3da waxaan u diidaynaa midda koowaad waxa weeye ninka odaygii waa laga qaaday sharaftii iyo go'aankii iyo mas'uuliyadiisii marka 3 aad keento adoo oday ah ee lagu dhaho oras ka tag ka rabaan ka qaadani go'aanka ma odayga gaaray mise guddiga doorashada gaaray bilaa calaykum guddiga doorashada gaaray barnaamijkani wuxuu khatar ku yahay taariikhdii soo jireenka
dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaa in odaygu uu reerka taladiisa gooyo isinku marka tiiba dhabarka laga jabinaya taamiyaan yeelaynaa ma yeelayno marka waxaan rabnaa odayga markuu la tashado isinku nabadoonnada asagaa garanaya qofka reerka masalaya ee reerka dantiisa ka fakaraya qofka aqoonta leh qofka wanaagsan qofka ciddaas u soo dhicin kara xaqeeda asagaa garanaya waa in odaygu halkaa qof uu keeno laga aqbalaa taasina waa qodobka labaad ee rabno taasna way caddahay soo ma qodobka saddexaad waxaan rabnaa guddi doorasho oo cadaalad ah guddi doorasho oo cadaalad ah maxaa jira doorashadu dadkay u dhaxaysaa markaan aniga iyo walaalkay Saaraar iyo Xidig iyo raggii kale faraha badnaa iyo Axmed Madoobe aanu tartamayno hadduu mid annaga naga mid dhaho kaligay baa mataqaana guddiga ku tasarrufaya halka cadaalad baa ka imaanaysa haddii wixii waa wax naga dhaxeeya si aan ugu tartanno waa in guddigii uu noqdo guddi dhexdhexaada oo nin walba ku kalsoon yahay aqliga taa keenaya Soomaa laakiin haddaan ku dhaho waa kula tartama dadkii maamulka wax kala habeynayay kala aruurinayayna aniga kaligay baa qoranaya billaah calaykum taas maxaqba sidaas sax ma aha marka waxaan rabnaa marka guddi doorasho oo cadaalad ah in la sameeyo ama kan la saxo midaasaan rabno midda kale rabno waxa weeye markii taa la sameeyo ee xubnihii doorashada baarlamaanka waxay soo xulayaan baarlamaankii sharciga waddanku wuxuu qabaa doorashada madaxweynaha waxaa iskale golaha baarlamaanka guddiga doorashadu ma laha waa in markii baarlamaanka la xulo baarlamaanku wuxuu dooranayaa qofka ugu da'weyn markuu qofka ugu da'weyn doorto haddana waxaa la samaynayaa guddoonkii baarlamaanka waxaa la samaynayaa guddiyadii kala duwanaaya baarlamaanka guddigii baarlamaanka ee doorashada la samaynaya kaasaa wuxuu shaqo ku leeyahay doorashada madaxweynaha ee guddiga doorashadu shaqo kuma laha saa darteed annaga maba aqoonsaninba waa la fahanteen soo ma labada qodob ee kale rabna waxa waaye waxaan rabnaa doorashadu inay ka dhacdo meel aan la baqayn oo cadaalad ah garoonka ay doorashadu ka dhacayso ninkii codka ridaya hadduu baqayo oo askarta ay dul taagan tahay codkayuu u ridayaa markaa codkayuu siinayaa ninkuu ka baqaya soo ma meel marka uusan qofkii baqaynin markuu codkiisa ridayo oo dhexdhexaad ah oo ilaahay mooye cid kale uusan ka baqaynin inay doorashadii ka dhacdaan rabnaa waxaa kaloo rabnaa dadka doorashada waardiyeynaya inay noqdaan dad loo siman yahay oo nin gaara aan difaacaynin taas marka waxay keenaysaa doorasho xalaal in dhacdo horta annaga waxaan raadinayno waa intaa ma nala qaadateen midaas waa midda qodobka labaad baan haddana imaanaya qodobka labaad ee raba inaad ii sheego waxa weeye waxaa dadka reer Jubbaland qaybo badan oo ka mida reero badan oo ka mida oo anigu reerka aan ka dhashay ay ka mid tahay lagu xuuxiyaa ree hebel baa weerar idinku ah wax ree hebel weerar ku ah miyaa jira war cid weerar sameeyad aragteen war qabiil Jubbaland oo qabiil kale weerar ku ah miyaad aragteen waxaan idin sheegayaa cid weeraraysa ma jirto cid dhulka qaadi kartaa ma jirto cid riixi kartaa ma jirto Soomaali ma kala adka cid meel laga saari karaana ma jirto marka beentaasna waa been aan saliya raatoona lahayn reer Jubbaland waa mid waa walaalo Soomaa mid baan nahay walaalaan nahay dalka iyo dadku waana deeqaa Soomaaliya oo dhan bay Jubbaland deeqdaa iska daa qabiilo gooni ah Soomaaliya oo dhan bal iska daa East Africa oo dhan haddii la isugu keeno Jubbaland barwaaqada ka jirta way ka badan tahay laakiin waxaan u baahanahay aqligii aan barwaaqada uga faa'iideysan lahayn dadkii marka ma jirto reero colan ma jiraan Jubbaland siyaasiyiin waxaa jira dadka raba inay kiciyaan oo qabiil isticmaalaan oo dad walaalo ah oo isdhalay oo isdhaqday oo daaq wadaag iyo biyo wadaag iyo baad wadaag iyo deegaan wadaaga inay isku diraan oo sheeko qabiil kaar qabiil loo akhriyo kaarkaasi ma shaqaynaya Jubbaland waa mid Soomaa mid Jubbaland waa mid labaad oo raba inaan ku xuso iyadana isla qodobka la socoto waxa waaye annaga haddaan nahay isbedel doonka dhammaan haddaan nahay golaha badbaadada ee Jubbaland kulligeen waxaan rabnaa Jubbaland oo ammaan ah Soomaa haddii waddanka ammaan darra ay ka dhacdo xageen maamulaynaa dadka marka dadka shacabka ku kicinaya isbedel doonku fidnay wadaan ama amni darray wadaan waa been hal ogaado isbedel doonku wuxuu rabaa ammaan buu rabaa
nabad buu rabaa horumar buu rabaa annaga waxaan rabnaa waddanka inaan dhisnaan rabnaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan jidad dhisno inaan iskuulla dhisno inaan isbitaallo dhisno inaan dalka xorayno inaan cadaalad keenno dadka inaan walaalayno magaalo qurux badan oo nalal leh caruur mataqaana qurux badan masaajid inaan dhisno iskuulle inaan dhisno dadka walaalayno taa way midaan u soconno waana midna laga hortaagan yahay midaasoo diyaar uma tihiin qodobka saddexaad ee ugu dambeeyaan rabaa marka inaan ka hadlo maanta waxaa isu yimid golaha badbaadada Jubbaland dhammaanteen xubnaan ka nahay Soomaa waxaan isku raacnay shirarkii joogtada ahaa ee soo socday waxaan isku raacnay dhowr qodob qodobka koowaad waxa waaye waxaa la sameeyay guddi farsamo oo ka kooban 7 qof Soomaa guddigii farsamada ahaa wuxuu soo saaray 75 qof oo ah xubnihii golaha dhexe guddigaas 75 wuxuu ansixiyay ama ansixinayaa safar baan ku maqnaa habraacii doorashada ayuu ansixinayaa waxayna isku raaceen inay soo saaraan guddi doorasho oo ka kooban 15 qof inuu soo saaro oo 10 rag ah iyo 5 dumar ka kooban inuu soo saaray isku raaceen wixii hadda ka dambeeya waxaan sugnaa waxa weeye in naloo soo bandhigo odayaasha golaha badbaadada Jubbaland waxay noo soo bandhigi doonaan habraacii doorashada waxay noo soo bandhigi doonaan 75 qof ee golaha dhexe ay noo diyaariyeen waxay noo soo bandhigi doonaan 15 qof ee golaha maxaan ku yiraahdaa guddiga doorashada ahaa guddigaas marka wuxuu qabanayaa doorasho xor ah oo xalaal ah halkaas aan ku tartamaynaa marka insha Allah taala hawsha diyaar baa loo yahay Soomaa waxaynu qabanaynaa shirkan ka sii weyn oo hawlahaas oo dhan lagu soo bandhigayo oo halka la soo istaajinayo guddiyadii kala duwanaa hawshiina waa galaynaa insha Allah taala sababtaan u sameynaa arinta maxay tahay ma fawda ma sababtu waxa weeye doorashadii naga dhaxaysay haddii dhinac loo leexsaday soo mid naga dhaxaysay inaan samayno ma dadka dhan dhaxtaal waa inta raadinayna waa inta wax kale maran haddaba haddii la saxo tahadda jirta haddii la saxo oo sharciga la waafajiyo waan ogolahay Soomaa laakiin inta bahasha halka lagu wato annaga la leeyahay halka ka istaag haddee wax aan ka qayb gali karnaa rabnaa waxa wuxuu raadinayna waa intaas alxamdulillahi rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد waxaan leeyahay ujeedadeenu waxa weeye oon u soconay waxa weeye cadaalad iyo horumar iyo xoriyatul qowl iyo sinaan iyo nabadgelyo intaas oo dhan baa ujeedadeenu tahay soo intaas ma fiicna waxaan ka soo horjeednaa dulmi iyo gardarro iyo kufsi iyo dhac iyo isxeerin la'aan isu turid la'aan isqiimayn la'aan insha allahu tacaala taana waan ka baxaynaa waxaan doonaynaa dadaalkeenna inuu ku yimaado hoggaamiye jilicsan oo awood badan macnaheedu waxa weeye hoggaamiye jilicsan oo keenna daciifkaa la shaqeeya oo keenna qawigaa la shaqeeya oo gabadha umushaa la shaqeeya oo wiilka dhaawaca la shaqeeya oo odayga la shaqeeya oo haweenka muxuu ahay dhammaantood la shaqeeya oo dadka da'da oo dhan la shaqeeya oo kuwa agoontaa la shaqeeya oo aan habeeniya maalin seexanin baan u baahna hoggaamiyaha noocaasa insha allahu tacaala ilaahay baan ka baryaynaa in ilaahay noo keeno
oo dalkeenna waxa ku aasan ee nicmadaana inooga soo saara soo intaa iskuma ogol soo intaa ma rabno waxaan idinku bishaaraynayaa hadduu la yidhaahdo guushiinni inay soo dhowdahay inay guushu soo dhowdahay sheegashadeedu way badan tahay laakiin u halgankeedu wuu yar yahay oo dadku way cabsanayaan oo dadku way daalayaan oo dadku way oomayaan oo dadku way gaajoonayaan laakiin markii guusha la gaadho nin walba wuxuu dhihi aniga may arkaysay halkaasaan ka hayay maalintaasaan bannaan baxay maalintaasaan halkaa ka waxeeyey maalintaasaan halkaa xabadda ka riday saasuu ku dhahayaan guusha marka la gaadho insha allahu tacaala waxaan leeyahay maamulkeenna hadda jira meel kastaba ha joogo taniya somalilan baan u jeeda maamulkeenna hadda jira maamulka soomaaliya o dhan baan ka hadlayaa waxaan leeyahay geesiyaashiinna halaynina oo haddaad geesiyaashiinna laysaanna fulayada amase ayda cadowgiina uu idin cuno ayda cadowgiinuna uu idin cuno haddaad adigu geesigaaga qiimayn weydo oo geesigaaga aad disho oo aad u nixi weydo waxaa ku cunaya fulayga cadowgaaga ku cuni meel cidlaa kugu cunaya war soo run maaha waxaan leeyahay ruux walba oo Soomaaliya ha u turo hana u naxariisto waxaan leeyahay hadduu alla yidhaahdo tallaabada ku xigta waxaan isla tegi doonaa intaan guriga ka baxno insha allahu tacaala bannaanada iyo beeraha waaweyn iyaynu ku damaashaadi doonaa inagoo xora asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaan la wadaago information aan rabnay inaan idiin sheegno kaasoo ah mid aad tabayseen macluumad aad tabayseen ayaan rabnaa inaan idiin sheegno haddii ilaahay idmo kaasoo ah madaxweynayaal dadka u sharaxan madaxweynayaasha isbedel doonka Jubbaland waxa ay shalay la kulmeen igad waxay maanta la kulmeen Amazon iyo fikirka ay ka qabaan waxaan hadda socdo saddexda qodob inaan la wadaagna ayaan doonaynaa ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa dhammaantiin iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay kulanka maanta gabdhaha nawan wanaagsan iyo dhalinyarada iyo odayaasha dhammaantiin waxaan leenahay waa la guuleysanayaa wax yar baa haray wax yar baa dhiman guushiina waa dhowdahay waxaan u baahannahay adkaysi iyo sabar wax kasta oo la wado oo intiinan ayna qayb ka ahayna meel gaari maayaan soo sax ma aha waddanka la wada leeyahay oo la wada degan yahay waa in la wada maamulo siyaasaddiisa soo ma aha ciddii damacda inay wax iyadu leedahay ay samaysato waxaan leenahay waa kuwa keliga reer Jubbaland uma dhama annagu shalay waxaan kulan la yeelanay urur goboleedka igad ninka mas'uulka u sarreeya Soomaaliya u qaabilsan qaybta siyaasadda ayaan la kulanay shalay waxaan la kulmay musharaxiinta oo dhan waxay kula kulmeen xarunta UN compound ee ku taala duleedka airport Kismaayo waxyaabaha aan kala hadalnay waxa ka mid ahayd koow waxa aan rabno musharaxiintu waxa ay rabaan oo ay ka mid tahay koow in la helo odayaasha dhaqanka oo saxda ahaa labo in odayaasha dhaqanka ee saxda ah ay soo xulaan hal qof saddex in xildhibaanada la soo xulay ee saxda ku yimid ay ayagu doortaan ama ay processka wadaan madaxweynaha afar in doorashada lagu qabto meel ummaddu ay u dhaxaysa oo aan ahayn meesha uu Axmed Madoobe kaligiis xirtay shan in beesha caalamka iyo saxaafadda adduunka ay ka soo qayb galaan goobta doorashadu ka dhacayso oo aysan noqonin
meel mugdi ah oon la wada arkaynin. shantaa qodob waxaan ku darnay in guddi isku sheega dib u soo doorashada Axmed Madoobe ay iscasilaan kana hor dhaqaaqaan dadka hortiisa. waxaan sidoo kale u sheegnay oo aan la wadaagnay haddii aan la joojinin dhaqdhaqaaqa hadda ay wadaan oo ay ku maldahayaan ama ay ku majar habaabinayaan doorashada la raba inay ka qabsoonto Jubbaland, dadka ay ugu sheegayaan inay yidhaahdaan waxbaa noo dhammaaday, waxaa beenbeenta ah oo ummadda lagu majar habaabinayo haddaysan joojinin inaan samaynayno amrimaha soo socdo ayaan u sheegnay. iyagu waxayna siiyeen markay intaa dhegaysteen iyadoo qoraal ah waan dhiibnay. waxaan filayaa inaad ku aragteen baraha bulshada oo wax qarsoon maysan ahayn, iyadoo Soomaali ah iyadoo English labadaba. iyaguna waxay noo sheegeen sababtay u yimaadeen, sababtaasoo ay ku caddayd inay aruurinayaan xogta dhabta ah ee ka jirta Kismaayo oo ku saabsan doorashada Jubbaland. waxay noo sheegeen markay la kulmeen laga soo bilaabo madaxweynaha iyo guddi isku sheega iyo golaha dawladda ka tirsan sii dhacayo oo waqtigoodu dhammaaday, markay la kulmeen waxay noo sheegeen inay ka qaateen wixii xog ah, laakiin wax ay yidhaahdeen waxaasaa idiin saxan ma jiraan. saa darteed waxaan iin sheegaynaa inay noo caddeeyeen IGAD in boroseeska hadda ay wadaan kuwaan guddi isku sheega ah iyo maamulka Axmed Madoobe waxa ay hadda wadaan inay yihiin wax khaldan oo khilaafsan nidaamka sharciga dastuurka u yaala dawladda federaalka, midka Jubbaland iyo shacabka rabitaankiisa wax khilaafsan inuu yahay. waxay kaloo noo sheegeen oo ay nala wadaageen in ayaguna ay maanta naga bilaabeen oo shalay ahayd inayna waraystaan waxa aan qabnay fikirkeena weydiiyaan, kadibna ay u gudbi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka, gabdhaha iyo dhammaan ururada bulshada inay la kulmi doonaan oo ay ka qaadan doonaan xog buuxda. arrintaa ayada ah waan bogaadinaynaa fikirka ay ku socoto IGAD oo ah inay warbixinta aruuriyaan marka hore, kadibna ay soo saaraan fikirkooda iyo fikirka beesha caalamku ay ka qabto boroseeska doorashada ee khaldan ee ay wadaan guddiga isku sheega oo uu hogaaminayo maamulka Axmed Madoobe, in laga noqdo waxaasoo dhan. intaas ka sokow waxaan in sheegaynaa oo si cad ay noogu qeexeen inna cadaynaynaa waxa weeye warbixinadii ay dhiibeen maamulka Axmed Madoobe iyo guddi isku sheega oo ay IGAD ka sheegeen inaysan ahayn wax jira, dhammaanna lagu qanacsan yahay waxa socda inuu yahay wax khaldan. intaas kadib maanta waxaan la kulannay commanderka ugu sarreeya AMISOM ee jooga sektarada kala duwan ee Kismaayo ama Jubbaland, sektarka labaad iyo sektarka lixaad oo la isku daray commanderkooda ayaan la kulannay iyo staafkiisii oo la socda, annagoo kala hadlaynay arrimaha ammaanka maadaama maalmaha doorashada hadda lagu guda jiro aan dareemayna ammaan darro. waayo odayaal dhaqameed baa lagu dilay magaalada, waa ogtihiin. nabadoonkii jareerweynaa la dilay, nabadoonkii iyo ugaasi gaaljecel baa la dilay, dad badan baa lagu dilay magaalada maalmahan la soo dhaafay. ilaa haddeertaan waxaan ognahay in odayaashii dhaqanka qaar ka mida loo hanjabay, waxaan ognahay in isbedel doonka dad ka midoo dhallinyaro iyo odayaal iyo gabdhabaa loo hanjabay oo telefoonno loo soo diray. arrimahaasoo dhan waxay keenayaan ammaan darro. maadaama ay ammaan darro keenayso, ammaankiina waxaa gacanta ku haysta maanta waa Axmed Madoobe iyo tiimkiisii. annagoo markasta ku qanacsan oo runtii aad u bogaadinayno dhallinyaradannada ciidamada kala duwan ah ee Jubbaland leedahay. markasta waxaan leenahay shaqo fiican baad haysaan, waad wanaagsan tihiin, laakiin waxaan kaga digaynaa nidaamkan calankoodu sii dhacayo maalmaha u haray inaysan dadkiina idinku dilin. qodobka asaga waxaan u sheegaynaa markasta
ciidamada ammaan kala duwan ee reer Jubbaland maadaama uu asagu hadda kontaroolka hayo waxaan aad u tuumaynaa in ay dilal qorshaysan dhici karaan arrintaas si looga hortago darteed ayaan ula kulannay runtii Amisom waxay noo sheegeen la wadaageen in la dhisay guddi ka kooban 18 tobanna ay yihiin qaybaha kala duwan ee Amisom 8na ay yihiin qaybaha kala duwan ee Jubbaland iyo ammaanka qaybaha ka qaabilsan 18 kaas xubnoodna ay ka wada shaqayn doonaan ammaanka doorashada iyo magaalada Kismaayo arrintaas macnaheedu waxa weeye in hadda kadib ayna dhici doonin in lagu xadgudbo dad muwaadiniin ah oo reer Jubbaland lagu xadgudbo ama la iska dilo kadibna la qariyo dhiigooda oo aan laga hadlin arrintaas way dhamaatay xafiis cusub aana loo furay sidoo kale Amisom waxay bogaadiyeen oo ay soo dhaweeyeen ragga aan la kulanay maanta oo ninka u sareeya guddigaas chairkana u ah wuxuu bogaadiyay inaad xaq u leedihiin inaad campaignkiina samaysataan waxaad xaq u leedihiin ay isu timaadaan waxaad xaq u leedihiin inaad mudaharaadaan adinkoo markasta ka fogaanaya inuu isku dhacdhaco annaguna waxaan nahay dad shicib ah oo aan hubaysnayn waxaan xaq u leenahay inaan campaign samaysanno inaan mudaharaadno inaan jidadka Kismaayo istaagno annagoo si nabad ah u sheeganayna wax aan qabno arrinta ayada waa arrin xaq muwaadin weeye waa xaq muwaadin kasta uu leeyahay cid marti looga yahayna ma jirto maadaama aanan ammaanka khalkhal aan ku haynin waxaan xaq u leenahayna kama tanaazulayno waxaan samaysan doonaa mudaharaadyo nabadgeliyeysan baan ku qaban doonaa magaalada Kismaayo iyo wadooyinkeeda hadii Ilaahay idmo intaas kadib labadaas macluumaad kadib waxaan rabnaa idin sheegno inta idin sheegeen musharaxiinta oo ahayd in ay Jubbaland gali doonto jawi cusub jawigaas oo ah in la gali doono qabanqaabadii guddiga doorashada uu dhameystiran yahay sida la idin sheegay guddiga doorashada waa diyaarsan yahay waxaan la wadaagi doonaa bulshada reer Jubbaland guddigaas magacyadooda iyo intay tira leeg yihiin baan la wadaagi doonaa iyagoo isugu jira rag iyo dumar isugu jira guddigaas wuxuu la shaqayn doonaa sida aad maqlayseen odayaasha dhaqanka oo ah odayaasha soo xuli doona baarlamaanka kadibna halkaas waxaan ka bilaabaynaa haddii Ilaahay idmo in guddiga uu shaaciyo golaha baarlamaanka cusub ee Jubbaland oo xaq ah arrinta ayada ah sida la in sheegay waxa weeye waxa sababta ay keenaysa waxay tahay waxaan ognahay inuu khilaafku fiicnayn waxaan ognahay in nidaamyo la garab sameeyo ayna u fiicnayn bulshada maanta waan dareensanahay laakiin nidaamkii la khalday iyo in bulshada la sanqaduuba darteed ayaa waxaan ku qasbanahay in reer Jubbaland oo diiday nidaamkan dadka majara habaabiyay 7 sano oo dadka baabah ka dhigay oo dadka ku riday dib u dhaca si uu soo noogu soo noqonin dartiis baan u yeelaynaa xaq baan u leenahay soo maaha si cad baan u sheegaynaa nidaamka si cad waxaan u sheegaynaa nidaamka Axmed uu hogaaminayo 7 sano inuu waqtigiisii naga dhamaaday oo aanan laga soo dhaweynin Jubbaland oo dhan ummadii buu kala dilay dhaqaale xumo abuuray colaad buu abuuray dawladdii federaalka Soomaaliya oo dhan buu diiday beesha caalamku la diriiray waa nidaam hal qof ah oo doonay inuu u shaqeeyo naftiisa oo kaliya ka waa diidnay anagu ma rabno waxa aan rabno wuxuu yahay nidaam loo dhan yahay doorasho xor iyo xalaal ah oo ummaddu u dhaxeeya oo uu ka soo baxo madaxweyne loo dhan yahay oo ummaddu ay dooratay oo markaas aan la xisaabtami karno dhaana maxaad qabatay maxaadan qabanin intaasna aan ku doorno mar labaad ama aan ku diidno laakiin waxa hadda maanta jiro ah 7 sano ayaan idin xukumayay waxaan qabtay ima weydiin karo qofkii yiraahdo ku tartamayana waa xiraya ama waxba uma ogoli nidaamka asaga waa ka gudubnay dib dambe inaan ugu noqonana ma doonayno waxaana u sheegaynaa si cad inuu waqtigoodii dhamaaday ilaahay san ka rajaynayna ma nagu soo noqon doonaan waana maasantiin assalaamu calaykum